Assalaamu calaykum. Kacbadu diyaaraduhu may dul maraan mise ma dul maraan? Waa muuqaalkeena maanta. Kacbada barakaysan waa makaan khaas u ah muslimiinta. Waxa weeyaan masaajidka koobaad ee laga dhisay arlada aan saarannahay. Waxa kale oo ay tahay qiblada muslimiinta dhammaantood u jeedsadaan xilliga salaada ay oogayaan. Dadkaasoo ku kala nool daafaha dunida. Waxaa faafay waayo hore macluumaad cajiib ah oo la yaab leh, kuwaasoo laga sheegayo kacbada sharafta leh. Kuwaasoo dad badan lahaayeen waa mucjisooyin rabbaani ah oo ay kacbadu khaas ku tahay, macnaha gaar la tahay. Macluumaadkaas waxaa ka mid ah in aysan shimbiruhu diyaaraduhu aysan dul marin kacbada, sababtoo ah waxaa ku dhufanaya shalal ama howlgab, waxayna joojinayaan macnaha ay ka caajisayaan inay duusho ama diyaarad ama shimbir. Sababtoo ah maka waxaa ku taala xarunta meeraha dhulka iyo waxa loo yaqaano epicenter of gravity. Waxaa la sheegaa in marmarnaansho ay u dhaxayso lakabyada hawada ee ka sarreeya kacbada. Waxaa sidoo kalena la sheegaa in uu jiro iftiin kacbada ka soo baxa oo taga spaceka sare ilaa iyo kor. Taas ayaana ah sababta u diidaysa in ay diyaarad iyo shimbir aysan dul mari karin kacbada. Warimahaas oo dhan waa kuwa dadka muslimiintu ay maqleen sanado badan ka hor. Sidoo kale dad kale oo waxaa jira aan waxaa ku kalsoonayn oo shaki ka qaba. Haddaba xaqiiqadu waa maxay? Ma sida aan soo sheegnay ayaa sax ah mise sidan dadkan kale shaki ka qaba ay aaminsan yihiin? Xaqiiqadu waxay tahay in waxaas oo falanqayn ah aysan ku salaysnayn wax raadin cilmiyeysan oo sugan, maadi iyo diini weliba. Waxaana rumaysan muslimiinta badankood sheegashooyinkaasi sababtoo ah jacaylka ay u qabaan iyo taqdiisinta kacbada, iyo in aysan kacbada dusha iyo taqdiisinta ayaa ka dhigaya in ay aaminaan inay kacbadu dul mari karin diyaarad iyo shimbirtoona, iyagoo fasiraad uga dhigaya inay jiraan falanqayn cilmiyeysan. Falanqayntaas oo leh in uu jiro nuur ka baxa kacbada iyo xarunta iyo kacbada oo ah xarunta soo jiidashada magnetka. Waxa oo dhanna waa faalooyin aan ku fadhin wax caddayn ah. Laakiin su'aasha maskaxdaada hadda ku wareegaysa ayaa ah sababta aan loo soo arag ilaa iminka loo arki la'yahay xitaa hal diyaarad oo dul maraysa kacbada. Jawaabta oo kooban waxa weeyaan marka loo eego kacbada muhiimadda ay leedahay diin ahaan muslimiinta dhexdooda, waxaa la go'aansaday in la ilaaliyo ayna noqoto meel bilaa shanqadh ah oo degan. Waana sababta madaxda Sacuudiga juhdi badan u geliyeen si ay xujaajta u gutaan xajkooda walwal la'aan. Waana sababta loo mamnuucay inay diyaarad dul marto. Taasina waa taqdiisin iyo ixtiraam loo hayo kacbada. Kacbaduna waa meel muqadas ah una gelin qof aan muslim ahayn. Waxaad arkaysaa in airportka macnaha airportadu ayna ku oolin Maka. Airportka koobaad ee ugu soo dhow uu ku yaala magaalada Jidda. Makana ma jiraan helicopter taduushe ee dul marta kacbada si ay dadka xanuunsanaysa u qaato iyo iskugu duudo wadooyinka xujaarta. Wax kale ma arkaysid. Waxaas oo dhan waxa weeyaan si qofka xajinaya uu si raaxo leh ku guto xajkiisa iyo dareensiin la dareensiinayo weynida meesha uu joogo. Muuqaalkani maanta intaas ayuu ku egyahay. Fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. Mahadsanid. Ka raali ahaada hadduu codkaygu idin qancin waayo, sababtoo ah degdeg baa ku jira. Waana fiidiyooyinka koobaadan cod dul saaro. Markii raaligelin baan ka bixinayaa. Hadduu fiidiyoogu ku qancin dislike waa saari kartaa, sababtoo qasab ma inaad like saarto waxaadan ka helin. Mahadsanid.